degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool degmadaas waxayna shirkooda jaraa'id ay ku sheegeen in aysan jirin cid matasha degmada ay ku nool yihiin oo imika ku sugan magaalada muqdisho warbixinta ku saabsan waxa inoo soo diray waryaheena cabdiweli cali odayaasha iyo waxgaradkan oo warfideenada kula hadlay degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si cad u sheegay in aysan jirin odayaal dhaqameed matala wanlaweyn oo ku sugan muqdisho waxa ayna sidaas si lamid ah eedayn u soo jeediyeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ay tilmaameen odayaashan inuu qayb ka yahay horinta colaadaha ka aloolsan degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose anigoo ka hadlaya magaca degmada wanlaweyn odayaasha dhaqanka degmada wanlaweyn waxaan ka hadlaynaa oo shirkaan jaraa'id u qabanay warbaahinta iyo tiibiyaalka war xalay ka yeeray aan aragnay warkaas wax aska jiraan ma aha degmada wanlaweyn odayaasheedii annukaa ah dadka ninka xildhibaanka qaranka ah oo meesha ka hadlayo odayaasha meel iskugu geey odayaashaas odayaal reer wanlaweyn ma ah dadka odayaal degmada wanlaweyna mas'alaynay leh degmadaan kama tirsano iyo ganacsato oo inta shuqul anka la hayn hirshabeelle isku jeedaan iyo way sheegayeen deegaankan maadaama deegaanka wanlaweyn iyo aataar anka la hayn in ay deegaanka sheegayaan iyo haysida wayn deegaanka wanlaweyn ay nabadeeyay inta fadhiido iyo inta maqan nabadeeyaas maahana nimalkaasayta nabadeentiyo shuqul iyo shaqo kaliyin mal dawladda federaalka koonfur galbeed may ku astaana ilaa caalamka lankasta deegaan shay amalska siiyay deegaanka uni ilaahay alafkaan ku dhig uni isku lana aamin jaasa degmada wanlaweyn afaarta ku hooy hadii ku bahawaay dad been soo sheew oo daafeed kooy wali kulum jawaabtiya una milan u siiyay cabashooyinka indergaradka wanlaweyn ayaa ah kuwa waqtiyadii dambe taagnaa waxaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo dhawaan gaaray wanlaweyn sheegay in wax badan laga qabanayo tabashooyinka reer wanlaweyn cabdiweli cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka shabeellaha